ururka caalamiga ah ee gaadiidka dhinaca cirka ee loo yaqaano International Air Transport Association loona soo gaabiyo IATA ayaa sheegay in aanay jiri doonin diyaarad dulmarta hawo aan la isku halayn karin ammaankeeda xilli uu khilaaf ba'an uu ka taagan yahay maamulka hawada Soomaalida. afayeen u hadlay IATA ayaa waxa uu u sheegay mar uu waramayay wakaalada dhinaca duulimaadyada ka faalloota ee loo yaqaano Simple Flying in khataraha iyo halisaha dhinaca amni ee badqabka ee ku gadaaman maamulka hawada Soomaaliya uu yahay mid keeni kara in laga leexdo hawadaasi maadaama oo hawo aan amni ahayn diyaaraduhu aanay isku halayn karin iyagoo ka fikiraya badqabka rakaabka saaran diyaaradahooda. warbixintan ay baahisay Simple Flying waxa ay ku sheegtay in saraakiisha dhinaca hay'adda duulimaadyada ee Soomaaliya ay arintan waxba ka qaban kari waayeen isla markaana ay u gudbiyeen wax ka qabashadeeda arintan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya si uu qaado talaabo dhinaca siyaasadda ah oo arintan wax laga qabanayo ama xal loogu raadinayo. ururka IATA waxa uu sheegay dhinaciisa inuu wado dadaallo ay la kaashanayaan hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca duulimaadyada ee ECAWA iyo waliba hay'adaha duulimaadyada ee ku yaala gobolka Geeska Afrika si wax looga qabto arrimaha ka taagan hawada Soomaalida isla markaana loo sugo badqabkooda. warbixintani waxa intaasi ku dartay in Somaliland ay isku dayayso inay hawadeeda si gaar ah u maamulato sida warbixintan lagu yiri kadib markii ay ku qoreen barta X ama Twitter-ka ay Somaliland ku leedahay hay'adeeda dhinaca duulimaadyadu inay doonayso inay si gaar ah hawadeeda u maamulato kadib markii ay Soomaaliya carqaladaysay diyaarado ku soo socday Somaliland. warbixintani waxa ay intaasi ku dartay in hawada Soomaalida oo ah tan ugu mashquulka badan oo ay maraan diyaarado fara badan oo u kala goosha qaaradaha Afrika iyo Asia iyo qaybo ka mid ah qaaradda Yurub ay soo wajahday cabsi weyn oo dhinaca amniga ah kadib markii diyaarado hawadaasi maraya fariimo khaldani oo kala duwan ay gaareen isla markaana qaar ka mid ah diyaaradahaasi oo ay ka mid yihiin diyaaradda Qatar Airways iyo Ethiopian Airlines la siiyay khad isku mid ah isla markaana ay isku dhici gaareen kadib markii laga siiyay fariin laga soo diray magaalada Muqdisho ay khadkaasi isku mid ka siisay sida ay qireen diyaaradaha Ethiopian Airlines iyo Qatar Airways. intaasi wixii ka dambeeyay waxa cabsi weyn soo wajahday duulimaadyadii dulmari jiray hawada Soomaaliya taas oo keentay in ay ka fikiraan diyaaradahaasi inay gabi ahaan bedelaan khadka ay mari jireen ee hawada Soomaaliya. Ethiopian Airlines ayaa waxa ay bedeshay gabi ahaanba khadkii duulimaadyada ee ay dulmari jirtay ee hawada Soomaaliya iyadoo u baydhay dhinaca hawada dalka Djibouti marka ay diyaaradaheedu u socdaan dhinaca dalalka ku yaala Asia iyo waliba bariga dhexe. xiisadda dhinaca maamulka hawada ee u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya ayaa waxa ay bilaabantay oo ay salka ku haysaa heshiiskii isfaham ee dhex maray Somaliland iyo Ethiopia ee ku saabsanaa dhinaca badda waxaana tan iyo intii arintaasi ka dambeysay ay Soomaaliya isku dayday in ay celiso ama ay carqaladeyso diyaarado ku soo socday garoonka diyaaradaha ee Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa. diyaaradahaasi oo ay ka mid ahaayeen diyaarada ay Ethiopia Airlines lahayd oo ay la socdeen mas'uuliyiin Ethiopian ah oo Somaliland imanayay iyo waliba diyaarad kale oo emergency ah oo iyaduna doonaysay inay qof xanuunsanaya ka qaado madaarka Hargeysa ayaa iyadana hawada laga celiyay waxaana arintaasi keentay in ay arinta khilaafka hawada ee Somaliland iyo Soomaaliya ay cirka isku shareerto waxaana imika hubanti la'aan ay gashay maamulka hawada Somaliland iyo Soomaaliya diyaaradaha isticmaalaya iyadoo arintaasi ay khatar weyn ay iyo walaac ay ka muujinayaan diyaaradaha hawadaasi adeegsada. lama oga halka ay ku dambeyn doono khilaafkan ku saabsan hawada ee u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya iyadoo arintani ay walaac ku abuurtay diyaaradaha rakaabka sida ee hawadaasi isticmaala. aanay diyaaradahani badankoodu ay qorsheynayaan in gabi ahaanba ay hawadaasi ka baydhaan maadaama oo aanay jirin isku halayn dhinaca badqabka ama nabadgelyada ah oo ku saabsan marista hawadaasi. shaqadii waan ku soo daalay
gaastiina way igu kacsantahay maanta. iska xabiib alsaafi xagada keentay waa caano tayada wadanka Sacuudiga laga keenay haye waa caano tayadooda la hubo aad iyo aad u fiican karantoon noo soo qaad haye